قرني مدهنو بالشوي خدي قور هيغا نقو بالشوي قرني مدهنو بالشوي خدي قور هيغا نقو بالشوي halkani waa degmada Dhabbad 38 kilomitir ayay dhinaca bari kaga beegan tahay degmada Caabudwaaq waxa ay dhisnay muddo aad u fara badan inkastoo ay saameeyeen colaadii soo martay dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya haddaba waxaanu muujinaynaa filimka dhabta ah ee degmada Dhabbadeed xagga waxbarashada caafimaadka nolosha dadka biyaha baahida iyo weliba qaybo fara badan oo kala gedisan oo horeyna aanu ku bilowno dhinaca caafimaadka Dhabbad ma leedahay xarun caafimaad degmada Dhabbad ma lahan xarun caafimaad iyo meel dadka lagu dabiibo waxa ay leedahay oo kaliya laba farmasi degmada Dhabbad waa meel ay ragaadiyeen ama ay ka muuqato diifta colaadii dalka Soomaaliya waana degmo yar oo aan dhismin isla markaana aan kubcin marka la fiiriyo deegaanada ama degmooyinka Balanballe iyo Caabudwaaq degmada Dhabbad habeenkii dadka ku nool waa ay qaxaan ama waa ay baqaan waxa ay ka baqaan colaado isdaba jooga oo ay leeyihiin dad ay suumin la wadaagaan isla markaana in badan ay soo dirirayeen ama markaas ay dhex yaalaan colaado sokeeye ama dagaal sokeeye muuqaalka sawirka meeshaan aad arkaysaan waa isbitaal laga dhisay markaas laga hirgeliyay degmada Dhabbad waxaana isbitaalkani gacan ka geystay mid ka mid ah jaariyadaha ku dhaqan dalka dibadiisa oo markaas doonaysay inay hormariso xagga caafimaadka sidii loo dhisay isbitaalkani waxba laguma qaban isla markaana lagu daaweyn qalab la keenay iska badaa waxa degan shimbiro waxa uu noqday meel qashin leh isla markaana cidna aysan ku jirin oo waxba aysan ku qabsan waxaan la oran karaa waa lacag qasaartay iyo weliba dadaal qasaaray haddaba xilliga aan ku sugnaa degmada Dhabbad oo aan diyaarinay barnaamijkani ayaa waxa soo gaaray mid ka mid ah xildhibaanada ka soo jeeda beesha Side oo lagu magacaabo Cabdixafiid Sacdi Jaamac oo ka yimid dalka Sweden isla markaana booqasho ku yimid degmada Dhabbad Cabdixafiid waxa uu booqday inta aan ku sugnaa Dhabbad xarumo badan ay ka mid tahay isbitaalkan waxa Cabdixafiid socdaalkiisa ku weheliyay Professor Maxamed Xuseen Ducaale waa professor ka yimid magaalada London waxa uu ku sugan yahay degmada Caabudwaaq isla markaana ka tirsan yahay maamulka culimada Ahlusunnah wal Jamaaca waa ragga ugu firfircoon ee deegaanka wax qabadka ka wada isla markaana iftiimiyay nolosha macaan iyo horumarka la taaban karo professorka waxa uu ka mid noqday xubintii ugu horeysay qurba joog ah ee ka qayb gashay ama ka mid noqotay maamulka Ahlusunnah wal Jamaaca waxaana professorka oo ku heliyay socdaalka wafdiga xildhibaanka soo gaaray gobolada dhexe gaar ahaan degmooyinka Caabudwaaq Balanballe iyo Dhabbad oo mar walba ka hadlayay isla markaana muujinayay waxa dadku u baahan yihiin oo ka maqan oo ay daneynayaan baahida kala gedisan ayuu soo bandhigay isagoo markaas la hadlaya ama baaq u jeedinaya qurba joogta ka soo jeeda deegaanadan inay wax ka qabtaan hawlahan haddaba soo laabnay isbitaalkan waxa uu yahay mid hawlgab ah waxaana ka warramaya xildhibaanka iyo weliba professorka waxa ku aragnaa isbitaalkii dhexe ee magaalada Dhabbadeed oo aad aragtaan siduu u dareysan yahay waxa isticmaalaa ma jiraan waan iska cidla isbitaal kalena magaaladu ma ilaha waxa uu baahan yahayna waa wax yar wuxuu u baahan yahay in la dayactiro isla markaasna qalab la dhigo dhaqaatiirna la keeno intaas uu baahan yahay waa wax yar oo dadka dibadda iyo dawladdu ay qaban karaan waxaanu abiir u direynaa dadka bulshada ku nool dibadda oo maaragtay qurba joogta ah ee ka soo jeeda gobolkan maaragtay Galgaduud gaar ahaan Noorad Galgaduud waxaanu rabnaa in garoonka isbitaalkan lagu sameeyo dibadhis darbigiisa la dheereeyo waad aragtaan quruxda ka muuqata iyo weyna ka muuqda meel la isticmaalana ma laha waagii dawladdu dhacday baa ugu dambeysay waxaan rabnaa isbitaalkan in gacan la saaro anoo qurba joogta ka iyo baarlamaanigeena Cabdixafiid oo isaguna dawladda maaragtay baarlamaaniga labada waxaan u joognaa iyo bulshada inteeda kale in aanu dadka ku baraarujino abiil cusubna aanu dirno sidii isbitaalkan wax weyn looga qaban lahaa oo noqon lahaa isbitaal anfaca dadka ku nool degmooyinkan oo dhan arrintaasina waa arrin muhiim ah abiilka kana waa abiil maaragtay aad urgent u ah oo aan dhihi karno waa mid aad iyo aad degdeg u ah sida hadda meelaha aynu soo aragnay ceelasha aynu soo aragnay meelihii booliisku maaragtay dadku ku hayn jiray isbitaaladii kulli waad u jeedaan waxay u baahan tahayna wax weyn maaha waxaanu rajaynaynaa marka in waxaan si degdega wax looga qabto dhinaca dawladda iyo maaragtay awooddeedana wax nooga sheegi doona Cabdixafiid oo ah xildhibaankii ugu horeeyay ee dhulka ka soo istaaga waxaanu ugu celinaynaa mahad aad u weyn maadaama anigu aan meesha uga soo horeeyay inaan ku soo dhaweeyo isla markaasna aan u sheego dadka wuxuu ku talagalsan yahay inuu shaqo ballaaran meeshan ka qabto ilaahayna waxaan u rajaynaynaa in sida uu rabo alla suurtageliyo dadka dibadda jirana uu la hadlayo isaga laftigiisu markuu doono waa qurba joog
haddana waa nidaamkaas marka waan ku soo dhawo cabdifataax ku soo dhawo aad baa umahadsantahay professor runtii farxad weyn bay ii tahay intii aan saaka soo maray intii horay aan soo maray iyo inta noo dhiman baa Ilaahay idmo guud ahaan waxaan rajaynaynaa gobolka oo dhan inaan tagno hadii Ilaahay idmo sababtoo tahay waa gobolkii anagu aan ka soo jeednay ama matalaynay anagoo bulshada Soomaaliyeed matalayna haddana gobolkii nalaga mataqaanaa dadkiisa matalaynay in badan baan ka soo hadalnay nabadgelyadii iyo dadku isku dhaxgalay iyo quruxda runtii wax badan baa gobolka ka jira oo wanaag ah waxaan rabnaa marka hadii Ilaahay idmo inaan dhinaca dawladda dadkii in badan buu leeyahay dhinaca dawladda wali wax noogama qaban gobolku waa dayacan yahay dawladdu waa dayacday laakiin markaan insha Allah taala dadweynaha waxaan u sheegnay gobolka iyo deegaamada qoyga galguduudba iyo guud ahaan gobolkaba in dawladdu u soo jeedsanayso waxaan rajo weyn ka qabnaa waliba madaxweynaha mataqaanaa dawladda ku meel gaarka ee Soomaaliya mudane Shariif Sheekh Axmed iyo ra'iisul wasaare Cabdiwali inaan xataa ay yimaadaan gobolka dadweynuhuna aad u danaynayaa wax qabadka dawladana aad baa loo danaynayaa baaqa dadweynahana waa gaarsiinayna insha Allah taala dadka deegaanka ee qurbo joogta ahna waad arkaysaan oo deegaamadii lagama guurin inaad ka aamustaan marka ma aha hadii laga guuray oo meeshu cidlaba ay iska tahay hadda meel cidlaba wax laga qaban mayo laakiin hadii meeshii dad ehelkii oo laga tagteen ay wali ku harsan yihiin dadkii nolol buu u baahan yahay caafimaad buu u baahan yahay waxbarasho u baahan yahay intaas waxa la idinka rabaa intaad awoodaan inaad kartaan annaguna dhinaca annaga insha Allah waa dadaalana waana mahadsantiin sidoo kale wiil dhalinyaro lagu magacaabo Maxamed Daahir oo ah rag ugu firfircoon oo kana mid ah waxgaradka degmada Dhabbad waa nin dhalinyaro oo aad activity u ah mar walbana jecel horumarka degmada Dhabbad sida la inkaga warbixiyay professorka iyo xildhibaanku ay kaga warbixiyeen halkaan aad u jeedaan waa isbitaalkii weynaa ee degmada Dhabbadeed waxaana dhisay jaaliyadda dabadda 2002 markay dhiseen ka bacdina wax hawlgal ah oo uu ku hawlgalay ma jiraan waxaan leenahay sida aad u dhisteen inaad isku raacisaan oo dhaqaatiir haddaad u soo diri lahaydeen iyo haddii maaragtaa aad sidii kuwa hawlgelin lahaydeen inaad hawlgelisaan sida ugu degdegsan badan waa isbitaal weyn oo baaxadiisu weyn tahay waa isbitaal ku filan degmada iyo deegaamadeeda hoos yimaada dhammaan dadka bulshada ku nool haddii kale waxa weeyaan waxaa ka mid tahay in dhaqaalihiinni aad geliseen ay khasaaro noqdeen way la mid noqonaysaa haddiina ka mira dhalin wax looga mari dhalin karana maanta buildingkiisi waa fiican yahay waa hawlgelin wuxuu rabaa in maaragtaa la qalabeeyo iyo dawadiisii iyo dhaqaatiirtii kaliya ayuu u baahan yahay intaas oo aad isku raacisaan baa mira dhal noqonaysa maxamed Daahir su'aal ku weydiiyay dadkii isbitaalka dhisay 2004 ka dambeeyay waxay u keeni waayeen dhaqaatiir iyo qalab iyo su'aalku waa dayacan yahay qarash baa galay lacag bay u horeen ha uga haray arrintan ma garanno wax reason oo hadda cad oo ay uga hareen oo aan maaragtaa ku cadeyn karno ma jiraan sababtu amni la'aan kuma dhicin fan ay hadda waayeen ma jiro maxaa yeelay wixii waa ugu talagalkooda uga balaarnaa anaga ilaa hadda sabab cad oo ka hor istaagtay ma ogin maxaa ugu baaqaysaa marka oo hadii la ku reeyo dadka dhisay khaas ahaan ummadii dhistay ee dhaqaalaheedii gelisay oo juhdigeedii gelisay oo fikirkeedii gelisay waxaan leeyahay mira dhalkii kaliya in ka maqan ee ka yool gaaran haddii aan soo laabano xagga waxbarashada degmada Dhabbad ma lahan wax iskool ah ama meel wax lagu barto marka laga soo kaco iskool iminka la hirgeliyay oo weli ardadii aysan waxbarasho ka bilaabin laakiin qabyo ah waa dhowr qolo iskool ah oo ay dhisay mid ka mid ah hay'adaha ka shaqeeya deegaanada Dhabbad Cawdaq iyo Balanballe oo markaas bixiyay sanadkiisa waxbarashada muuqaalkan idin muuqda waa iskoolkii xaruntii markaasi aan joogno booqanay waxaana ka warbixinaya sidoo kale professor Ducaale iyo waliba xildhibaanka oo weheliya waxayna ka warrameen xaaladda isbitaalkan iyo sidoo kale waxa uu baahan yahay iyagoo baaq u diray dhammaan hay'adaha iyo waliba qurbo joogta ka soo jeeda deegaankan inay wax u qabtaan ilgooniyan ay ku fiiriyaan deegaanadooda dibna u samilcsadaan waxaad aragtaan waxaan hor taagannahay Cabdi Xafiid oo barlamaaniga oo ah baarlamaanka ninkii ugu horeeyay oo yimid iyo anigoo qarbo joogta ka imid oo wadanka Ingiriiska muddo badan ku noolaa waxaan hor taagannahay iskuulkii hoose dhexe ee Iqra ee ku yaalay magaalada Dhabbad sidaad aragtaan waa aragtaan wax darbiya male mas'uuliyiintu ma fiicna caruurta dhigataan ilaa 170 caruur weeye waxaan rabnaa iskuulkan in wax laga qabto oo waxaan abiil u fidireynaa dadka qurbo joogta meel kasta ay joogaan ee u dhashay degmooyinkan waxaan rabnaa in maaragtay awood la saaro 8 macallin baa wax ka dhigta 8 macallin wax mushaar qaataa ma jiraan waxaan aad u jeclaan lahayn in la isxil qaamo oo dibadda laga soo taageero iskuulkan Iqra oo ah iskuul aad iyo aad u fiican oo baaxadiisu fiican tahay macallimiinta iyo dadka wax ka dhigtaan ay yihiin dad aqoontooda ay fiican tahay laakiin macaawimo la'aan wax uu samayn kara ma jiro
cabdi fataax kusoo dhawow. bismillah runtii in badan baan soo marnay waana arkaysaan waxa meeshan ka jira kulley waxaan isku dayaynaa insha Allah tacaala haddii ilaahay idmo inaan u gudbino dowladda ku meel gaarka ee Soomaaliya waana muhiim in la ajiibo mataqaanaa waan rajaynaynaa in la ajiibo baaqeena gaar ahaan wasaaradda ama hadda ay hoos tagaan wasaaradda waxbarashada hidaha tacliinta sare waan u gudbinaynaa haddii ilaahay idmo si toosana waxaan isku dayaynaa wasiirka waxbarashada iyo mataqaanaa labada waxa ay leedahay laba ceel mid ka mid ah waxa uu dhisnaa xilli badan waxa uu noqday gabaafsi iyo markaas aan ugu shaqaynin bulshada sidii la rabay asagoo aan haysan qalab iyo weliba wax lagu qabto midna waxaanu ku filnaan waayay dadkii dunida ku dhaqnaa degmada Dhabbad waxaana dhawaan laga hirgeliyay isla markaana iska kaasheen jariyaha ku dhaqan dalka dibadiisa ee ka soo jeeda magaalada Dhabbad in ay markaas hirgeliyaan oo dhisaan ceelkan cusub ay hadda muuqaalkiisa idin muuqdo waxaana farta laga gooyay muddo hadda laga joogo dhowr bilood sidoo markaasina shaqeeya oo biyo leh iga geli horumarka tilmaanta hoggaashiya ku xira horarta dhulkaagana hoos u dhugo iga geli horumarka tilmaanta hoggaashiya ku xira horarta dhulkaagana hoos u dhugo عرابو حليلة إيو هيان قرين نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرين نهاي هشتي هذا كوا إنان هكذا مرنو بالشوي هلكوها منا عرابو حليلة إيو هيان قرين نهاي عرابو حليلة إيو هيان قرين نهاي هشتي هذا كوا إنان هكذا مرنو بالشوي هلكوها منا hadda iyo tusaalaha hadafkeena gaarnay arbadka iyo yaambada ma ku wada hagaagna hadda iyo tusaalaha hadafkeena gaarnay arbadka iyo yaambada ma ku wada hagaagna irkala cadeegana xaruntan hadda aan soo booqanay waa xarun MCH ah isla markaana dhistay mid ka mid ah hay'adaha ka howlgala ama ka shaqeeya deegaanada Dhabbad Caawada iyo Balanballe oo dhawaan ka sameeyay mashaariic qolol iyo weliba guryo badan si dadku ay ugu qabsadaan hay'adda maxalliga DRC waxayna caawisaa dadka iyadoo markaasi u tilmaamaysa wadiiqada dadka ay ku shaqeysan lahaayeen wax ku soo saaran lahaayeen waxayna ka qaadaa dadka lacag isla markaana ay ugu dartaa lacag kadibna ay u dhistaa guryahan si ay wax ugu qabsadaan qolka MCH-kan ee laga hirgeliyay degmada Dhabbad ayaa wax dhex yaala sariiro iyo bustayaal iyo joodari oo markaas ugu deeqay isbitaalka Hadiya oo ku yaala magaalada Caawdwaaq haddaba qaar ka mid ah haweenka Dhabbad ku nool ayaa waxaan kala sheekaystay xaaladda iyo weliba nolosha degmadaas Dhabbad waxaan haweenkan ka horeystay baahida dhabta ah ka jirta deegaanka iyadoo markaas sawir iyo muuqaal gudiga siiyay xaaladaha dhabta ah hadday noqon lahayd waxbarasho caafimaad nolosha aasaasiga iyo weliba qaybo kala gedisan waana kuwan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ayuu ka warramaya meeshaan dhismahan idinkaga muuqdaa waa MCH-ka degmada Dhabbad weeye waxaa dhisay DRC hay'ad la yiraahdo iyo bulshada deegaanka oo iska kaashaday ayaa dhismaha guud dhisay agabkan kaleeto oo idinkaga muuqdana waxaa ugu deeqay Hadiya Hospital Caawdwaaq. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام بعد أنا وحنا ما عايش حالي إلى أنا شاقية أدور مرالي أنا أمورس دبر شوكته يا أمورس راسو وحنا هاي مدسكال أمورسات طبعا عادة مركي يقول وصابر تعرفوا مركي هو وحنا اللي يرى وصابر هذا في الكيك وجهي يكون مقانا يا سما هذانا مركان وحنا شفنا من مية المدين وياها نقول نشوفنا قبلها هذا أنت لو بتكون رئيسي هذانا ماشان ولا سؤالنا وحنا ويا الله wax qalab haba yaraatay noo yeel oo hebel dhahno noo yeel ama waa wadaagteen meeshii waxaan marka codsanaynaa hadii ilaahay idmo dadkeena noo yimaado hay'adaha oo sharafta leh in ay nagu taakuleeyaan wixii qalab ah ama caafimaad ama dawladda jahriyada dibadda ku soo timaada waxaan ka codsanaynaa jahriyadaha dibadda ama maxaan ku raacdaa hay'adaha noo yimaado oo dhanba gaar ahaan jaariyada dibadda oo aan ka codsanaynaa mid qalab ah oo umulis lahaan jirtay ama dhakhtar lahaan jiray oo kaaliye lahaan jiray intaba waan qaban karnaa in loo keeno oo aan helno ma koobi karno waa hebel ma dhihi karno waayo sariir ma haysano qalabkii yaryaraa oo gabdhuhu lagu umulin jiray ma haysano dabkii iyo korontooyinkii lagu sameyn jiray waxyaalo badan oo wixii uu ka koobnaaba halna kama bahayna laakiin anaga waxaan naloo helay in naloo dhiso guryaha saddexda qolka qoryaha saddexda qol hadaan gabdhihii la nimaan waxay gurigayaga aan ku qaban jirnay baan tanna ku qabanaynaa sababa marka saa darteeda waxaan jaariyada ka codsanaynaa in ay nagu taakuleeyaan oo nagu caawiyaan ama magaalada dhabadeed oo ay u dhasheen badankooduba u dhasheen in ay ku taakuleeyaan qalabkii wax lagu mulin jiray ama maxaan ku raad baabuur haday ahayd ama hadii maxaan ku raad caafimaad ay gaari xitaa ma haysano anagoo daan caawin weyno ilmaha gabadhaas iyo ilmaheeda daan badbaadin weyno gaari xitaa ma helno aan ku qaadano meesha gaari noogu sukaysa waad garanaysaan baabuur lagu tago gaarigii lagu qaadi lahaana ma haysano meesha aan ku taglayn oo dhakhtarna waa cawd aqoon wax badan lagu dhaamin iyo wixii galinsooriya ka sii kor ilaa gaalkacayo marka saa darteeda wixii naga dhiman oo hadii dayactira adinku waad garan kartaan saa awgeedaan waxaan anigu idin leeyahay intaas aan doonaynaa in la ku soo taakuleeyo ya wixii aan la noogu faraxsan guriga leeyahay ama waxaan jaariyadaha dibadda jiro walaalaha iyo hay'adaha imaanaya adduunyaha aan ka codsanaynaa waxaan taraya taakule xoog badan oo isbitaal leh oo dhakhtar dawlad leh mid naageed iyo mid nooreelka waxaan ka codsanaynaa iskuulo in loo dhiso isbitaal in loo dhiso mulisooyinka meel gaar ah in loo sameeyo mid rageed inaan helo mid dumar inaan helo iskoola caruur dhigtaan dugsi sare ma lihin oo mid dhexe ma lihin oo toddobaad ma lihin oo sideedaad ma lihin oo sagaalaad ma lihin koowaad iyo labaad ma dhaafaan ardayda kulligayana waxaan nahay maata meel oodan oo masaakiin ilaahay wada dan yar oo agoon iyo waxa la mid oo aan waxay haystaan iska yartahay qolo wax loo qortay iyo qolo wax loo keentay iyo qolona taakulaysa ilaahay inaan ahayn jira xoolaheegaas iyo naftaydaas iyo gurigtaydaas ku warwareegay abaaro iyo col tira badan oo meesha geeska naga jooro aan marnaba naga dimin intaba waan haystaa jaariyadaha walaalaha yaa dibadda jira waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah wax noo tara masahaayadaha duweynaha waxaan kala idinka noo yimid oo guud waqtiga idinka codsanaynaa warbixin fiican inaad naga dhigtaan waxaan idinka codsanaynaa isbitaallo waaweyn oo wax u doonano markii kaayaga aan ka weyno aan ka soo gadano ganacsiga inahay waxaan codsanaynaa taakulo iyo waxaan ka codsanaynaa jaariyadaha dibadda waan idin salaamaynaa salaanta muslimka midda u qaalisanayaan ku salaamaynaa salaanka bacdi walaalayaal waxaan u baahanahay meesha aan ka hadlaynaa waa isbitaal oo hadda aan fadhino waa isbitaalka umulisada wax aan ku haysano oo guryaha saddexda qol ahayn ma ay jirto waxaan u baahanaa qalabkoodii waxaan u baahanaa jiifkoodii waxaan u baahanaa dayactirkoodii waxaan kaloo u baahanaa caafimaadka guud magaalada waxaan kaloo u baahanahay dad masaakiin oo dan yar ahaan oo hay'ad wax tarin oo hay'ad maxaan ku yiri jaaliyada dibadda wax u qabanin waxaan u baahanahay dad iska masaakiin oo dan yar ka buuxa oo guryo haysanin oo dayactir u baahan waxyaalo badan oo dhan baan ma aan soo koobi karo laakiin aad iyo aad ba magaaladu wax aan biyo ahayn waa u baahan laakiin rashi waa noo yaalaan in kasta baa iska biyaaba iska yaraadana laba ceel ha nagu ahaada waxaan ka codsanaynaa walaalayaal inaad aad iyo aad noogu soo dadaashaan
waxbarasho degdega oon u baahanahay dadkay wax ma bartaan caruurihii waa naga saaqideen magaaladii baan joognaa kaba guri karno waa wadalkayagii dalshisha iyo dad kale oo martiyana maan aadi karno dad kici kara ma nihin waxaananu ka codsanaynaa inaad waxbarashada aad iyo aad noogu dadaashaan qabadkeedana noogu soo degdeg noogu soo dadaashaan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii soo laaban xagga ganacsiga degmada dhabad malaha wax ganacsi ah iyo wax horumar ah waxayna dhinac walba uga liidataa ama mugdi uga tahay ama markaas ay kaga abaaraysan tahay dhinac walba nolosha bini'aadamku uu ku horumari lahaa hadday noqonayso waxbarashada caafimaadka nolosha asaasiga iyo weliba wax kasta oo wax soo saar ah oo markaas dadku u baahan yihiin inay ku noolaadaan wuxuu noqday yacni wuu xabaalmay oo qashin baa lagu guray sanadkii labada kun iyo labadii markay ahayd baan muxuu ahayd anigu waxaan ku samaynay qodaal 720 mitir baan qodnay oo keensiyada ka jirnay ceelka waxaa bannaanaatay 80 mitir inta kalena waxbaa ku go'an waxaan awoodi kari weynay inaan helo wixii aan ku salgaari lahayn oo muxuu ahayd to meeshaas waxa jooga aanu ku ogaan lahayn sidaa awgeed dawladda ku meel gaarka iyo xildhibaanka yimid waxaanu tusaynaa iyo maamulka ka socda ahlu sunna wal jamaaca iyo muxuu ahayd wafdiga ballaaran oo ka socda degmada caabudwa motoorka kan inuu u baahan yahay wax yar oo wax qabad ah u baahan yahay in laga qabto waxaas yar si yani ummaddu ay maaragtay u hesho biyo badan hadii ilaahay insha Allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأركيسان halkan hadayaan ka hadlaynay waxyaabaha uu deegaanka dhabadeed u baahan yahay ayuu ugu horeeyaa meelo kale waa tagi doonaa hadii ilaahay idmo runtii waxa weeye waxay kaafin lahayd wax badan oo baahi ah sidaa darteed waxa mar labaad aan anaga dhinacayna insha Allah taala aan dawladda ku meel gaarkaana waa gaarsiin doonaa baahidan iyo kuwa la midka oo deegaanka guud ahaan iyo gobolkaba dadka deegaanka iyo dadka mataqaanaa deegaanka u dhashay oo dibadda ku noolna ayaga laftigooda mas'uuliyad qaranimada hano bulshooy hadiyo goor heega noqo bulshooy qaranimada hano bulshooy hadiyo goor heega noqo bulshooy هو قبض غنوسنا ودنتادنا حقر كذا دنتادنا هو قبض غنوسنا ودنتادنا حقر كذا